nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay waxa soo bixi doona yiri qola soo bixi doonto yiri ahdathul asnaan waa dad sanad yar fiiraya xadiidka miisaankiisa marna ka wacan mayno ayagiiba waxay tusaale isaga dhigeen axaadiithii nabiga sallallahu alayhi wasallam noo sheegay macnaheedii bay miisaan isaga dhigeen waxay markaas waxay la bixeen al-shabaab waa dad yar nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay ahdathul asnaan waa dad sanad yar buu leeyahay sufahaa'ul ahlaam weynay sallallahu alayhi wasallam waa dad hadana aqli gaaban oo dad ma gaaba way qofka lagu qarxi billahi calaykum lagu qanciyay billahi calaykum naftaada qarxi iyo aqli leeyahay waa maya aqli ma lah marka waxay ku tusinaysaa miisaankii xadiidka nabiga sallallahu alayhi wasallam uu noo sheegay inay ku sugan yihiin marka nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ahdathul asnaan sufahaa'ul ahlaam yaquluna min qawl khayr al-bariya hadana waxay ku hadlayaan makhluuq ilaahay kii uu khayr badnaa qowlkiisa ku hadlayaan waa keenay Muhammad sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay qaala Allah ta'ala qaala rasuulullah sallallahu alayhi wasallam ilaahay wuxuu leeyahay bay ku leeyihiin nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri marka فأينما لقيتموهم فاقتلوهم بنور السلام بل الله بركة كلكم تنكدوا النبي صلى الله عليه وسلم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجر لمن قتل يوم القيامة قف الله قف كثيرين أجر بأوسهم بنور صلى الله عليه وسلم معناتها قيامة إخواني في الله مقاعي يوسف بن عبد الله حكم هاي سراكيش عيدن كحاجة دلك الصوماليات تاريخ كوبان هذا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم مقاعي يوسف بن عبد الله waxaan ka mid ahay saraakiisha xagga dalka Soomaaliyeed waxaan ka rabaa ki taariikhdayda kooban hadaan ka hadlo aniga waxaan ku dhashay yaraanta markii ugu horreeyay gobolka Bay baadiyihiisa waxaan ku barbaray meeshaas taariikhdu markii ahayd 1986 ayaan ku dhashay gobolka Bay waxaan ku barbaray miyiga meeshaasaan dugsi quraan iyo ku dhameystay waxaan ku rabaa ki waxbarashada diiniga waxaan ka sii watay taariikh 2016 baa waxaan u xireystay gobolka Gedo waxaan ku raanoo xir quraan ah oo xaaladeyda diinta meesha iska sii baranayo ayaa waxaa dhacday nimankan sharboobka inay soo kacaan oo muslimiinta ay kadeedaan marka taqriiban 2011 markii ahayd bishiisii koobaad baa waxaan go'aansaday diinta islaamka barashada kaliya ma ahan wax inay u baahan tahay arkay in la difaaco laga difaaco ummadeena Soomaaliyeed cadawgan horarka ku soo duulay oo diintoodii iyo maalkoodii iyo naftoodii banaystay markaasaan meesha ugu biiray inka xogga dalka Soomaaliyeed waxaan ka mid ah raggii goboladaas Gedo ka soo dagaalamay in muddo ana waxaan qoray khawaarijta la soo dagaalamay ilaa xilligaas saad ogtahay hadda aniga awalkayga hore waxaan ahaa nin ku tacalluqo barashada diinta islaamka nin cadiifad diiniyan ah markuu arkay diintii islaamka oo la burburinayo oo lagu burburinayo hadmu diin bismi diintii oo la burburinayo magaca diimada lagu burburinayo dadkeeni Soomaaliyeedna shaati diineed intii loo soo xirtay lagu gumaadayo oo aad arkayso 24 saac qof muslim la gowracayo la ilaaha illa allah muhammad rasuulullah ku hayo la gowracayo diintii waxaan ku rabaa saas lagu sii xumaynayo ayaa waxaan damiirkayga ka helay inaan ka fiirsan dhibaatada intaan la eg oo diiniyan iyo dad ahaanba dalkeena u haysato markaas naftayda inaan u bixiyo yaan go'aansaday waxaan ku leeyahay halganka iyo xornimada Soomaaliya qoladan khawaarijta aan ka xoreeyo si fiican ma sha Allah waan naasantay walaalkay awalan Allah subhanahu wa ta'ala qolkiisu wuxuu ku leeyahay يا الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم إلهي وحولي هي يا الذين آمنوا قو إلهي يومك آخر رميه من يرتد منكم عن دينه قفك إذن كمدة أو دينتي سكلا حدا الدب وقروش السماء دينتي الدب وقبحه فسوف يأتي الله بقوم إلهي بدب دم وحول إيمان دون قوم كاسو يحب الله إلهي ويجعله ويحبون أين ويجعله قوم يحبونهم الله ويحبون أذلة على المؤمنين ويؤجل عسين ذاتك أيها أي ما جورعيان مؤمنين وما إذاك سنيان قرح وما إذاك سنيان جورع وما إذاك سنيان إني حنكر بالك كحد قدبان نفط ضي مال قضبة ويؤجل عسين أعزة على الكافرين قال هذه يا منافقين تيانا منك حد قبيض بان ويكواد أدق هنا وضد حنكر بالك ولا يخافون لومة لائم بالله سبحانه وتعالى قف دقالك سنوغن بغيان ولا المركة waxaan adarkaysan oo hadda dhacayo waa wax hore loo sheegay oo waxaan korabaalka intaas oo boqol oo intaas oo kun oo qarne laga soo hadlayo way saad ogtiima nabigeena sallallahu alayhi wa alihi wasallam wuxuu damray man badala diinu faqatluhu min sallallahu alayhi wasallam qofkii diinta bedelo hala dilo
saad arkaysaanba waxaa soo kordhay diintii oo la bedelayo oo taqyiir lagu samaynayo diintii suubanayd addiinu naseexa buu nebiga sal slam diintu waa naseexa markaasa waxay su-aaleen liman ya rasuul allah allah warasuuluhu waliaimati almuslimiin wacaamati nebiga sal slam ilaahay bay naseexo u tahay rasuulkiisay naseexo u tahay maca daalika qofka muslimka ah waxaa looga doonayaa markaad wax farayso inaad u naseexaysid ee ma ahan inaad maxaan koraa gowrac u isticmaashid waxaad arkaysa maxaan koraa baalkii qof laa ilaaha ila allah lildadala oo lagu gowracayo maxaan koraa baalkii allahu akbar laleeyahay maxaan koraa sidii xoola ari maxaan lagu udxaysanayo ama loo biraynaya ad arkayseen iyo wax hadda idinkaga taariikhaynaya maaha wax ka dhacayo magaaladan hadda aan joogno ama maxaan koraa erida hadda aan joogno oo khaasatan soomaaliya wax ka jira ad arkaysaan oo maxaan koraa baalkii intaas oo boqol oo qof aan waxba galabsan qarax lagu laynayo marka taas iyadoo laga duulayo dadka mu'miniinta inay dagaalamaan oo jihaad galaan waa waajib waajibku waa labo marna waa fardu kifaaya marna waa fardu cayn markii wadamadaas kore uu ka jiro jihaadku wuxuu noqonayaa fardu kifaaya noqonayaa laakiin markii ardadaadii iyo meeshii deegaankaadii lala soo galo oo diintaadii lagaa soo galo oo xoolahaadii laguga haysto oo naftaadii laguga haysto wuxuu noqonayaa jihaadku fardu cayn marka waxaan hadda aad ugu hambalyaynayaa dadka naftooda u hurayo ilaahay subxaanahu watacaala diintiisa iyo dadkiisa iyo dalkiisa saad ogtihiin waxaan ku nafta anaka inagu malahan ilaahay baa iskale xooggan iyo awooddan anaka iska malahan ilaahay subxana wataala siyaa iskale marka dhallinyarada khaasatan ciidamada qalabka sido aad baan uga mahad celinayaa sida qiimaha leh ay ugu dagaalamayaan waxaan kore ugu horeen naftooda waxaan kore inay ka difaacaan cadowgan diinta ilaahay ku soo duulay diintiisa saad ogtihiinba jihaadku wuu fara badan yahay qof naftiisu ku jihaadaa qof maxaan kore wuxuu ku dagaalamaa afkuu ku dagaalamaa qof gacantuu ka dagaalamaa qof maalkuu ku dagaalamaa nabigeena sal alla alay slam wuxuu noo sheegay man jahaza qaazin faqad qaza binabi sal slam qofkii qababaaliyo ama maxaan kore ama abaabulo qof ilaahay dartiisa u jihaadaya duulayay asna duulaanku ka mid yahay buu nebigena sal ly slam saad ogtihiin maalimaha ka mid ah nebigeena sal ly slam asigoo duulaan qaadayo iyo meel dhex markuu marayay xadiid dheer buu ka hadlay wuxuu yidhi waxaa naga dimaray buu yidhi magaaladeena madiino maxaan koraa dad baa naga dimaray buu yidhi waxay nala yeelanayaan buu yidhi ajirkii xasanaadka aan leenahay camal bay helayaan buu yidhi oo waadi maana goynin waddana maana qaadin ilaa macaynay socdaan buu yidhi nebigena sal ly slam ilaa cudur baa xabisay marka sida warbaahinta ood u taagan inay muraal geliyaan horumarka kooda ka sheekeeyaan oo waxaan kore waxyaabaha wanaagsan suurada ay ka bixiyaan ciidamadeena safafka hore jihaadka ku jiro waxaan leeyahay waxay la mid yihiin kaanamaa ayagoo 24 saac u taagan jiidda hore dagaalka waxaan kore xabad rida ay la mid yihiin saad og tahay ciidamadeenan fariinta aan halkan ugu gudbinaya waxay tahay waxaad heleesheen fursad aad u qiimo badan nabigeena sala allahu alayh wasalam xadiid dheer ba wuxuu leeyahay سيخرج قوما آخر الزمان أحداث الأصنام سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية لا يجاوز إيمانهم حناجر يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فقتلوهم فإن في قتل أجر لمن قتل يوم القيامة نبينا صلى الله عليه وسلم حديث كرواية كان وحكيري لو أدركتهم لقاتلهم كقتل عاد بن صلى الله عليه وسلم حدا هلال لهاب يرقام كايقع حديثك هذا معنيه صوت المرة النبي صلى الله عليه وسلم وحله وحصاب بحدون قلا صاب بحدون توري أحداث الأصنام وضد سند يريد في رأيه حديثك ميزان كي سمرنا كوا عن مينه أيجيبه وحيت الصلاة سجد جان أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم راشجي معناه هذه بالميزان سجد وحين مركز وحين بحين على الشباب وضد يريد النبي صلى الله عليه وسلم وحله أحداث الأصنام وضد سند يريد بولي سفهاء الأحلام وينون صلى الله عليه وسلم وضد هذا أغلى جابنا ضد ما جابوي qofka lagu qarxay billahi calaykum lagu qancay billahi calaykum naftaada qarxi miyuu aqli leeyahay waa maya aqli ma lah marka waxay ku tusinaysaa miisaankii xadiidka nabiga sallallahu alayhi wasallam uu noo sheegay inay ku sugan yihiin marka nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ahdathul asnan sufaa wal ahram yaquluna min qawl khayr al bariya hadana waxay ku hadlayaan makhluuq ilaahay kii uu khayr badnaa qowlkiisa ku hadlayaan waa keenay Muhammad sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay qaala Allah ta'ala qaala rasuulullah sallallahu alayhi wasallam ilaahay wuxuu leeyahay bay ku leeyihiin nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri marka فأينما لقيتموهم فقتلوهم بنور بل الله بركة كلكم تنكدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم
فأينما لقيتم فاقتلوا فإن في قتلهم أجر لمن قتل يوم القيامة قف الله قف كثيرين أجر بأوسهم بينون صلى الله عليه وسلم معناتها قيامة إخواني في الله مركا فرصة صوت هيستان عيدك قلب كسيدة داتين وحان لا هي مركا حكا عاجسين نبينا صلى الله عليه وسلم وحنور شيء عينان لا يمسهم النار من النبي صلى الله عليه وسلم وحي الله بأن دون من النار ما تهبط ولا بده عينا باتت تحرس في سبيل الله البريدي أيضا واردينيس لله سبحانه وتعالى وديسه قفك وارديها أفضي أفضي لعطنا هبينك عاول لبيه تنكس أفضي وارديها وحو كجرا عباده لكن وقت يسألوا سجلوا ميماه وحيابا ما لا يعني وحلا بهي إنه أسينا في تركيز محن كورا وردقة إياه محن كورا كوسي كالميسو سو أجر كيس أقبطه وحكى لدى النبي صلى الله عليه وسلم الحويري إيش كلام وقته وعين دان الأيدي إلهي عبسيس إلا أيدي محن كورا إلا الميسي لبدا سندون النار ما تابطه مركب فرصة وحيا يستان عيدما دين قلب كسيدو آد ذهبي وآد وقيمة بدن waxay naftooda u horeen nafa kale inay badbaadiyaan nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu noo sheegay in allaha fi awn al-abd ma kana 'abdu fi awn akhihi qofka adoonka ah ilaahay baa garabkiisa ahaana ilaahay uu u gargaaray ilaahay kaalmadiisu ahaanaya intuu adoonku yahay fi awn akhihi ad walaalkiisa intuu u kaalmaynayo marka naftoodiba waxay ku bedeleen inay ku badbaadiyaan nafaf fara badan marka sida darteed ilaahay subhanahu wa ta'ala qolkiisu wuxuu ku leeyahay man qatala mu'minan muta'ammidan فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا قف مسلم أدله وحلم الجهة أسيا كسو يلين دله إن أمضي دان ودري بيلمت هاي بنيون صلى الله عليه وسلم قف كي بدبادينا وحلمت هاي أسيا بدبادي أمضي يردن مركا عندما ذا نقلب كسيد نفط هذا وحي أهورن إني بدباديان نفف فربضا مركا سادرتد وحلمت هاي أيها مخلوق إلهي يردن نلشي سكشقي مركا فرصة دادو قيم بدن وي